sidoo walaalo sheegay maantay waliba hadda feedback noo noqotay waxa noo soo dhamaaday kulanka jaaliyada oo aan ku gaarnay in walaalaheena beledweyne aanu caawino marka qorshihii baanu sameynay insha Allah waxaanu dalbanay in 12ka bishan aanu noqoto maalin dalkoo dhan aanu lacag ka aruurino taa hadda noo suurta gashana waanu soo bandhigeena macnaheedu marka ma aha inaan 12 ilaa inta la gaar aanu iska fadhino laakiin waxaanu kala sameeynaa in maxay gobolooyinka masaajidada maqaayadaha meel walbaba in la galo gruuba la isku kala qeybiyay insha Allah meediyada ayaa dad badan ka hadli doona gruub walba hawsheeda marka reer Norway meel kasta ay joogaan runtii waxay aad iyo aad ugu fiican yihiin oo Ilaahay ugu naxariista markuu dhibs yimaado waa loo kacaa maanta dhib weyn baa noo yimid bari ka maalmeesho dhici doona lama garanayo dhibkan walaalaheena waa inaan u wada kacnaa qof walba wuxuu awoodo waa inuu bixiyaa gurigiisa baa loogu iman karaa gurigiisa isagoo joogo ayuu bibs ku bixin karaa marka ha loo kaco walaalaha dhibaataysan jazakallah